السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashirka xiga ee cashirka sideedaad ee shabakada kobciya media. Waxaan maanta arkaynaa presentation view qaabkay markii aad documentka diyaarsatay uu ku diyaar yahay dadka loogu soo bandhigaa. Waxa loogu soo bandhigaa waxa tagaysaa slide show. Kadib soo bandhigiddu laba qaab ay kala tahay, saddex qaab. Qaabkoodu waxay from the beginning. bandhigidda xagee ka bilaabaysaa? Slide-kee ka bilaabaysaa? Slide-ka koowaad miyaa ka bilaabaysaa mise slide-ka macnaha ka koowaad unbaa beginning kaas uu aqbalaya. Kana waxa weeye from current slide. Slide-ka markaan aan joogo iga bilow. Masalan hadda waxa ii jooga slide-kii saddexaad. Haddaan current slide dhaho wuxuu ka bilaabanayaa computer-kaas ka bilaabanaya. Fiiriya saa marka uu dhufto computer-ka bilow. Okay, laakiin markaan presentation sida caadiga dadka u soo jeedinayo waxaan ku dhufanayaa from the beginning. Markaas ayaa presentationkii ay bilaabanaya waxaana joogaa focus ay ku qoran tahay slide-ka koowaad. Haddaan rabo inaan ka noqdo escape ayaan taabanaya. Okay, keyboard-ka qaabkee baan markaa presentationka uga kicin karaa? Waxaan taaban karaa F5. saas marka F5 taabto uu ii kacayaa. Sidee marka u socon karaa oo dadka ugu soo jeedin karaa? Arrow-ga ama waxaad taabanaysaa mouse-ka oo aad ku dhufanaysaa. Slide-kii labaad baan galay computer hardware. Slide-kii saddexaad intaanan aadin waxaa ii soo baxaya kii saddexaad program waa ka casharada sharaxan. Kii afraad baan aaday, kii shanaad baan aaday, kii dhammaan wixii oo dhan baan u jeedaa. Slide shanaad baan u socdaa, kii afraad baan aaday, kii lixaad baan aaday. Sidaas ayaan u soo bandhigayaa. Sidaas ayaan u soo bandhigayaa. Okay, marka qaabkaas loo soo bandhigi karaa ama waxa laga soo bandhigi karaa qaab halkan oo kale oo iyadoo la mid ah current slide show. halkaas ayaad ku dhufanaysaa. Tan ayaan ka wadaa slide show ayaad ku dhufanaysaa. Slide show ayaad ku dhufanaysaa. saas ku ugu soo kacay. qaabkaas markaa slide-ka loo soo bandhigaa. insha Allah intaasaan kusoo gabagabeynayaa cashirkii ugu dambeeyay oo ahaa qaabkee loo soo bandhigaa PowerPoint-ga slide show-gii aad ku diyaarisay. waa Ustaad Injineer Xasan Maxamuud Faraqlo idin leh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iyo nool kulanti dambe.